magacaabi jiray Qawla bintu Saclaba waxaa guursaday nin la oran jiray Aws ibn Thamit labadooduna waxay ahaayeen asxaabi Aws waxa uu la dhashay saxaabiga kale oo Ubaada ibn Thamit Allah ka raali noqday haddaba maxaa ku dhacay qofkaasi dumarka ahayd waxay noqotay qof daa oo aan waxba qabsan karin waxaa maalin maalmaha ka mid ah ninkeedii ku yiri Qawla waxaan igala mid tahay hooyaday oo kale oo kuma galmoon doono maanta wixii ka dambeeya ee raali iga noqo markaasuu ka tagay markii uu ka tagay oo banaanka uu ku maqnaa oo asxaabtiisii la soo sheekaystay ayuu ku soo laabtay gurigii wuxuu arkay xaaskiisii oo meel fadhida wuxuu damcay inuu la galmoodo gacanta ayuu u soo taagay waxay ku tiri maya ma dhici karto arrintaasi ma ogtahay waxa haday igu tiri waxaad ila mid tahay hooyaday oo kale ma xasuusataa waxaad tiri maxaad ula jeeday sheekada noocaasi oo kale ah waxay tiri raali iga noqo waxaan u tagayaa rasuulka alle Muhammad sallallahu alayhi wasallam maalin walba waxaad ugu tiraahdaa erayo qalbigayga dhibaya ma ogtahay inaan ahay qof duqoobay oo daa ah wixii hadda ka dambeeya ma awoodi inaan caruur dhalo ma ogtahay in xilligii dhalinyarada aan ahaa oo quruxda badnaa aan adiga kula soo qaatay waqtigayga oo dhan caruur ayaan ku dhalay caruurta aan dhalay dhan adiga ayaan ku dhalay haddaba markaan sidaasi noqday ayaad waxaad leedahay hadallo aan mudnayn inaad igu tiraahdo adeero raali ahow waxaan u tagayaa rasuulka alle Muhammad sallallahu alayhi wasallam sidaas darteed kuma ogolaanayo inaad jirkayga taabato ilaa Allah subhanahu wa ta'ala gartayna kala xukumo xaqiiqdii sheekada noocaasi oo kala maanta ayaan ku dhaqannaa maxaa yeelay xaasaska waxaan ku nirahnaa kuma galmoon karo kuma soo dhawaan karo halka iga taagnaaw ama xaaska ayaan guursanayaa ee nabaday ama markii jirkeedu wax ku dhaco subhanallah markaasi Qawla waxay u timid nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo waxay ku tiri rasuulki Allah waxaan u ashtakoonayaa oo u dacwoonayaa Allah waxaan doonayaa inaan xaaladayda Allah kaliya gaarsiiyo waxaan ahaa gabar yar oo aad u qurux badan jirkeygu wuxuu ahaa mid aad u dhisan waxaad og tahay rasuulki Allah inuu guursaday zawjkeyga Aws bin Thamit waxaad og tahay inuu yahay adeerkeyga waxaan u dhalay caruur badan waxaad aragtaa sidaan u ekahay maanta waan duqoobay wuxuuna maalin walba igula hadlaa hadallo aan qurux badnayn oo gafki ah maantana sidii uu joogay wuxuu ii keenay inuu igu yiraahdo waxaad igala mid tahay hooyaday oo kale oo yaanan isku soo dhawaanin wuxuuna ku soo laabtay guriga si uu jirkeyga u taabto oo aan ula seexdo isaga waana ka soo diiday oo ku iri maya waxaan u tagayaa rasuulka alle Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxaan rabaa in arintaasi alla weyna aan ugu ashtakoodo yaani dacwadeyda Allah oo kaliya u gudbiyo markaas rasuulkii alle xageedii Qawla soo eegay oo ku iri Qawla Aws waa ninkaaga waa in adeerkaaga hadalkaasi uu kugu yiri isaga sabar waa qof duqoobay sidaas ha ugu tagin oo ha ugu dheeraanin ordo ka isaga laabo oo ha u bixin wuxuu kugu yiraahdo hadal xun markaasi way kacday oo meeshii ka dhaqaaqday iyadoo ku qanacday hadalkii rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam maxaa yeelay ku caasiyada hadalka rasuulka alle waa dhumid oo aad ka dhuntay jidka alle وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما habboona qofka muuminka ah lab ama dhidig markii alle iyo rasuulkiisii arin ay gooyaan in ay iyagu yeeshaan ikhtiyaar taladooda ah ee haddaba kiini kasto caasiya alle iyo rasuulkiisii Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhab ahaantii dhimay dhumid cad Qawla way isaga dhaqaaqday halkii waxay tiri aniga qofka u dacwooday oo garteeda aan u dhigtay waxay ahayd Allah garteena inuu kala saaro oo waan rajaynayaa insha Allah ajiib سامركي أي سيدا سيوسي دغاغلي وحاسب دقدق ويمد ملك الجبريل رسولك صلى الله عليه وسلم أو وحي أولا عائشة نوحي تري وحن كجري قلقي أو وحن دربه ومقلي رسولك الله القرآن كره وأقرنيا وانا قرتي إنه مركي رسولك صلى الله عليه وسلم أيدي دمي وحدبه وصول لابتي قوله بالثعلبة أو إنه أو هن أي كقبنيان أو قركي دي دمقب سليم waxay tiri aniga alla weyna ayaan u ashtakooday oo dacwadeeda u gudbiyay alla weyna
subxaanahu wa tacaalana dacwadeedii waa uu maqlay oo qur'aan ayuu ka soo dejiyey maxaa yeelay alla weyne wuxuu yidhi waxaan maqlayaa dacwada qofkaasi dumarka ah markaasuu alla weyne u sheegay rasuulka alle Muhammad sallallahu alayhi wasallam inuu maqlay qofkaasi dumarka ah dacwadeedii قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير nabtii allah waa uu maqlay hadalkeedii qawla bintu athaclaba ee kaagala doodaysay muxammadow sallallahu alayhi wasallam arrinkii ninkeeda aws binu assaamid ee u dacwootay allah oo alle waa uu maqlaa dooda dhexdeeda idinka xaqiiqdii allah waa maqal badane oo arag badan يا الله أرنت نوع عسير كلام محن ما أنت كل قنا قف قروح ذي أكتين كل مسي إن أن كل هنا إيد ماشى كتر إسكجوا برجاج أو هي ذي يردي لما تهل سبحانه وأرن الله وين ولقد ذي يرهي وين تاسينا وحي لم يتهل مركي حاس كاجي وحسوق جاران أما جرك يسبدله أما لقطة كجوده أما جعنت كجوده وأن مركز بكاس دقت وعرنا سبحان الله الذين يظهرون kuwa idin ka mid ah ee isaga yeela xaasaskooda xaaraanta habka addihaar ayagoo ku oranaya waxaad igala mid tahay sida dhabarka hooyaday ma noqon karaan hooyooyinkooda oo cidina ma noqon karto hooyooyinkood oo aan ka ahayn kuwa iyaga dhalay oo xaqiiqdii waxay ku dhawaaqeen hadal xun oo munkar ah iyo been ah oo xaqiiqdii allah waa cafis badane oo dambi dhaaf badan سامركي أي آيات داسي دماتي وحو ألا وين أمري أوس بن ثابت إن حاسكيسي وسن أقل منكرين إلا أكما قدر أما كبحي وحو ألا وين كحكم إساقا ودقيسي وحو ألا وين كحكم والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير oo kuwa isaga yeela xaaraan aafooyinkooda habka dihaar oo raba in ay ka xoreeyaan nafahooda wixii ay ku dhawaaqeen ee siinta ahayd arrinka iyo waxa laga rabo si ay afadiisu ugu xalaaloodo waa xoreyn adoon inta aysan istaabanin isagii afadiisa taasina waa darsi iyo waano si aydan ugu laabanin waxaasi oo xun oo kale oo alle waa uu ka warqabaa waxa aad fashaan rasuulkii alle sallallahu alayhi wasallam kuwa kanina waa xuduudaha uu dhigay allah oo qaybta gaalada waxay ahaan doontaa cadaab xanuun badan waxay haddana qofkii dumarka ahayd ku tiri rasuulkii allow wuxuu haysta ma laha oo inagaaba maalin qadna maalinna wax cunno intee wax ka keenayna markaasuu rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam ku yiri qawla raashinkaani qaado oo waxay quudin kartaa 30 qafood waxayna iyadan sii raacisay waxaan anigana heli karaa raashin kale oo quudin kara ilaa ay 30 qafood sidaasna waxay ku noqonaysaa 60 qafood rasuulkii alle sallallahu alayhi wasallam iyo qawla waxay markaasi xaliyeen dibkii taagnaa سامالين تاسوي كدم بي وحلا شيئا إن سحابي أوس بن صامت إنه آد ودا قنجري حاسس إنت سكدف مركي أي متكسو وريتي وحمالين دعوة عمر بن الخطاب أو عيدا حوكره قامنا يا حل ليسي وحو يستاجي عيدا كيسي أو نما محايا وحو أركي قف دمراه أو تأهيد أو قعنت وهاتينيسي أو كلها استاج إنت سكدف عمر دربه وحو دقاقي إنه يستاجي عيدا كيسي حوكنا أو تراد بدنا هل مر أي أمر إنه دقاقين أو استاجان أو قفل بمشيسي استاجو وحو أسود دقي وحو كسود دقي فرس كيسي أما جيلي أوصارنا مركاسي
wuxuuna u yimid qofkii dumarka ahayd isagoo u dhoola caddaynaya ayada madaxana u laxay. wuxuu u xaliyey dhibkii haystay. markaasuu ciidankiisii ku soo laabtay oo ku yidhi ciidankiisii ina sii kaxeeya aan sii soconayn. markii ay dhexda socdeen qaar ka mid ahaa asxaabtii ama raggii la socday ayaa waxay ku yiraahdeen yaa amiirulmu'miniin kuma ayay ahayd qofkaasi dumarka ah oo aad ciidankeenii dhan oo sidaasi u xoogganaa aad darteed u istaajisay. cumar allah ka raali noqday markii uu hadalkaasi maqlay wuxuu ku soo jeestay ciidankiisii oo haddana istaajiyey oo ku yidhi istaaga. ma doonaysaan inaan idiin sheego qofkii ay ahayd qofkaasi dumarka ah oo aan darteed u istaagnay kol dhoweyd? qofkaasi waxay ahayd qofkii dumarka ahayd uu Alla weyna maqlay. idinkana waxaad doonaysaan inaan iyadaasi maqlin. waxay gacanteeda kor ugu qaaday inaan istaago. waxaana waajib ugu ahayd inaan istaago oo aan halkaasi ka dhaqaaqin. qofkaasi Alla weyne ayaa hadalkeedii dacwada ahaa maqlay oo xukun ka soo dejiyey. haddaba qofkaasi magaceeda waxaa la yiraahdaa Qawla bintu Thaclaba. qofkaasi waa qof Jibriil si degdeg ah rasuulka Alla sallallahu alayhi wa sallam ku amray inuu soo celiyo iyada una sheego inuu Alla weyne maqlay dacwadeeda. haddaba waxaan idin sheegayaa qofkaasi hadday hal mar istaajiso iska dhaafay 1000 jeer hadday istaajiso waan istaagayaa oo hadalkeedii waan maqlayaa. haddaba waxaan Alla weyne dhammaanteen noogu rajaynayaa inaan fahanno macnaha quraanka iyo awoodda quraanka. allow xaasaskeenii qalbiyadeena u jilci. allow qalbiyadeena u suubi oo wanaag iyo sinaan aan kula dhaqanno.